Bismillahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa maalin Axad ah taariikhda ay ku beegan tahay 22 bisha lixaad sannada 2025. Waxaan halkan kugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Iiraan iyo Israa'iil. Waxaa sidoo kale aan kula wadaagi doonaa kumuu ahaa guulaystaha toddobaadkan dagaalkii u dhexeeyay Iiraan iyo Israa'iil. Inta aan gudagalin barnaamijka waxaan si naxariis leh kaga codsanayaa inaad nagu soo biirtid page-ka, waana mahadsantihiin. Iiraan iyo Israa'iil waa kuma guulaystaha toddobaadka koowaad. Maxaa dhaca marka dagaal caadi ah loo bedelo dagaal xeeleed maskaxeed? Toddobaadkii ugu horreeyay ee dagaalka u dhexeeya Iiraan iyo Israa'iil wuxuu noqday mid aan caadi ahayn. Ma ahayn dagaal ka dhisan rasaas, balse wuxuu noqday dagaal lagu burburinayo kalsooni, sumcad iyo sirdoon. Iiraan waxay iska dhigtay in la weeqay awooddeeda gantaal kadib weerarada Israa'iil ka geysatay gudaha Teheraan. Warar si xeeladaysan loo faafiyay waxay muujinayaan in saldhigyo muhiim ah la beegsaday, taasi abuurtay dareen deganaan oo been ah gudaha Israa'iil laga fuliyay. Laakiin marka daha laga rogay gantaallo culus oo Iiraan ku soo riday gudaha dalkeeda, ayaa si lama filaan ah u gaaray bartilmaameedyo muhiim ah ee ku yaalla wadnaha Tel Aviv. Waxaa la ogaaday Iiraan inay weeqeen awooddeeda, balse xaaladdaas ay noqotay xaalad qorshe khiyaano dagaal oo lagu gaaray in weerar aanay jirin lagu daahfuro warbaahinta caalamka oo idil, kadibna la beegsaday Israa'iil xilli aysan feejignayn. Israa'iil waxay si dhaqso ah u wajahday burbur ka yimid nidaamka difaaca, wuxuuna u dhigmaa nabar la gaaray wadnaha sababtoo ah waa mid ka mid ah awoodda Israa'iil oo horey looga hor imaan. Waxayna jirtay nidaamyo difaac xaaladda ay ka dhigtay Israa'iil isla markiiba in lala xiriiray xulafadeeda Maraykanka iyo Yurub si loo taageero dhanka sirdoon iyo difaac inay ka hesho. Laakiin su-aasha dad badan isweydiinayna ayaa waxaa ah, haddii la weeraray Tel Aviv, xaggeese hartay? Iiraan kama jawaabin weerarkii Israa'iil oo si toosan militari ahaan ay u weerartay, balse adeegsi kadib sirdoon, khiyaano maskaxeed iyo xeelad iyo burbur ku aadan ayaa lagu weeraray Israa'iil. Weerarka ma ahayd mid tiro badan, balse wuxuu ahaa mid bartilmaameedyo ah, niyad-jab ku dhisan oo lagu soo bandhigay sida Israa'iil ay u nugushahay. Tani ayaa muujinaysa xaalado kadib in 3 meelood loo kala saaro. Maxay tahay 3daas meelood? In Israa'iil gebi ahaanba nolosheeda mugdi la geliyo, iyo in lagu abuuro cabsi dunida oo idil, in caalamka la tuso in Iiraan aysan u baahnayn cid kale. Maxaa la filin karaa toddobaadka xiga ee dagaalka u dhexeeya Iiraan iyo Israa'iil? Iiraan waxay u baahan tahay inay sii wado weerarka goosgooska ah, lala beegsanayo saldhigyo amni iyo meelaha degdega ah dhalin kara niyad-jab sida garoomada, saldhigyo sirdoon ama xarumaha tamarta ah. Hase ahaatee, waxaan halkan kugu soo gudbin doonaa yaa guulaysta ah ilaa iyo hadda Israa'iil iyo Iiraan dagaalka u dhexeeyay toddobaadkii la soo dhaafay. Haddii guusha laga cabiro ciddii la yaabtay cadowgeeda, Iiraan ayaa heshay dhibacahaasi. Maxayse tahay? Haddii guusha laga cabiro ciddii fulisay weerar ay ku dhex jirin howlgallo sirdoon iyo khawaarij lala beegsan karo saraakiisha iyo siyaasiyiinno, Israa'iil ayaa muujinaya in gebi ahaanba burburtay. Laakiin dagaalkan guushi ma ahan ciddii riday gantaal lagu horreeyay, waa ciddii jiri karta toddobaadka dheeraad ah iyadoo weli haysato sirdoon shaqaynaya, bulsho aaminsan iyo xulafo diyaar ah. Waa anigu Cabdullaahi Ibraahim oo idin soo gudbinayay wararkii oo dhammaystiran ee toddobaadkii la soo dhaafay dagaalka Iiraan iyo Israa'iil. Waana mahadsantihiin.